waad salaamantiin kusoo dhawaada mar kale iyo video kale cusub. maanta videogan waxaan kugu faa'iideyn doonaa sidee Facebook page-kaaga markii message lagaaga soo diro oo aad qofka si degdeg ah aad message-kaas ugu jawaabi kartaa ama reply aad u dhigi kartaa. tusaale ahaan marka Facebook page aad dhex gasho ama Facebook page qofka uu leeyahay aad dhex gasho oo aad message u dirto, waxaad arkaysaa in message-kii si degdeg ah lagaaga soo jawaabo ama reply lagu soo dhaho. haddaba sidee adigana Facebook page-kaaga sidaas oo kale markuu qof message kugu soo diro oo aad si degdeg ah u jawaabi kartaa oo aad message kale reply ama aad u jawaabi kartaa. videogan aan kugu soo faa'iideyn doonaa kusoo dhawaada videoga oo faahfaahsan. haddaba haddii aad doonayso in qof markuu message kuu soo diro aad si degdeg ah aad reply ugu soo bixiso ama ugu soo jawaabto, marka ugu horeyso waxaad u baahan tahay inaad soo degsato application-ka Facebook Manager ama Page Manager hadba saad u taqaano. Play Store-ka ayaan soo furanaynaa. markaan soo furno qaybta wax lagu qoro ama searching-ka waxaan ku qoraynaa Facebook Page Manager ama Page Manager waad ku qori kartaa. markaad ku qorto waxaan leenahay searching. markaad dhahdo waxa kuu soo bixi doono application-ka Facebook Page Manager. waana application aad iyo aad u fiican haddii aad tahay qof leh Facebook page. waana muhiim inaad soo degsato application-kan, wax badan ayuu kaa caawinayaa. haddeertaan waan soo dejinaynaa, install ayaan leenahay, waa uu soo degayaa. haddaba haddii Facebook page aad leedahay waa muhiim inaad soo degsato application-kan. wuxuu kaa caawinayaa in wax badan aad kaga maamulto Facebook page-kaaga. waxaana application-kan sameeyay shirkadda Facebook, waxaana uu talgashay dadka Facebook page leh inay isticmaalaan oo ay Facebook page-kooda ku maamulaan. haddeertaan saa u jeedaan wuu soo degayaa. saad u jeedaan haddeertaan wuu socdaa. qadkii ayaa xun balse wuu socdaa haddeertaan. soo haddeertaan saad u jeedo banaanka ayuu usoo bixinayaa oo macaanay guduhu nagu soo shubayaa. markaad soo degsato waxaad taabanaysaa open oo yacni application-ka waa soo furanaynaa. waa idin tusi doonaa application-ka. haddeertaan waan soo kacsanaynaa. markaad soo kacsato waana application-ka marka ugu horeyso wuxuu ku leeyahay oo Facebook-gaaga ayaad ku xiriirinaysaa account Facebook-gaaga. haddaba halkan wuxuu ku leeyahay continue as Nurdin Akadir. halkan waxaad kaga xiriirin kartaa Facebook account-kaaga. markaad taabato si toos ah wuxuu kugu xiriirin doonaa Facebook account-kaaga. saad u jeedo qadkii ayaa yara xun. haddaba halkan ayuu kuu soo gudbin doonaa markaad ku xiriiriso Facebook account-kaaga. haddaba halkan waxaa inuu yaalo page-kan. haddii aad doonayso inaad page-ka iska bedesho, halkan waxaad ka arki kartaa liiska page ee adiga aad samaysatay. midka aad doonto ayaad ka soo gali kartaa. haddeertaan sumog up ayaan ka soo galayaa. kadib calaamadda geeska ah ayaad taabanaysaa. kadib waxaad sii tagaysaa settings. markaad sii tagto halkan wuxuu kugu soo qaban doonaa waxyaabooyin aad u tiro badan, waana waxyaabooyin aad iyo aad u muhiimsan. haddaba muhiimadeenu waxay tahay meesha ay ku qoran tahay messaging oo haddeertaan idiin muuqato ayaan taabanaynaa. kadib qaybta ugu koreyso instant reply ayaad on saaranaysaa. marka hore off ayuu ku yahay, on ayaa saaraysaa. taas waxaad u ogolaynaysaa in message-kaaga oo loo diro qofka kuu soo diro fariin. haddaba qaybtan kale ka hooseysa ee qoraalka ku qoran waa bartaad ku qori lahayd message-ka ama fariinta aad doonayso in qofkaasi loo diro marka uu wax kuu soo diro. haddaba haddeertaan anaga waan tirtiraynaa. tusaale ahaan wax ayaan tusaale ahaan ugu qoraynaa. waxaan idil waan tirtiraynaa. markaad tirtirno halkan waxaad doonto ayaad ku qori kartaa. markaad ku qorto saad u jeedo wax walbo waad ku qori kartaa. haddaad doonto halkan igala soo xiriir waad dhihi kartaa. wax walbo aad doonayso waad ku qori kartaa. saad u jeedo aniga tusaale ay iga tahay
balse adiga halkan waxaa ku qori kartaa wax walba oo aad u baahan tahay ciwaanadaada iyo meesha lagala soo xiriirayo. Haddaba qoritaanka markaad dhameyso hoos waxaad ugu jeedaa meel ay ku qoran tahay calaamada love-ka ah. Calaamada hoose ee love-ka aad u jeedaan waa calaamad loogu talgalay in ma aragtay dadka magacyadooda aad ma aragtay lagu soo qoro message-kaaga. Calaamada love-ka ah markaad hoos u jeedo ee love-ka ah markaan taabano waxyaabo aad u badan ayuu leeyahay sida last, full name iyo wuxuu ku leeyahay waxyaabo badan ayuu leeyahay. Marka adiga waxaa muhiim ah inaad ka doorato full name oo yacni tani macnaheedu waxay tahay message-kan markaad qofka u dirto in magaciisa uu qofka meesha lagu soo qoro. Tusaale ahaan wiil Axmed la yiraahdo message ku soo qoray asiga magaciisa ma garanaysid balse si automatic ah Facebook ayaa magaciisa ku qorayo message-kan ama qoraalkan. Haddeertan sa u jeedo qaybta dambe ayaa qoraalkii loogu daray. Haddii doonto waad tirtiri kartaa magaca qaybta ugu horeyso waa laga soo muujin karaa. Haddeertan wuxuu ku leeyahay Nuurdiin Akaadir waan tirtireynaa qaybta ugu horeyso waad ka soo muujin kartaa. Isla calaamadii love-ka adigoo tagayo kana sii dooranayo full name. Si automatic qofka magaciisa ayaa halkaas hadhow ku soo buuxsamayo. Hadda meesha Nuurdiin Akaadir ay ku qoran tahay hadhow waxaa soo galayo magaca qofka ee message-ka ku soo dirayo. Haddaba waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday waadna save gareynaysaa qoraalkii aad soo sameysay. Halkan waxyaabo kala duwan yaalo sida away message inaad dirto iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan. Haddaba waxaan u maleynayaa videogan inaad wax ka faa'iiday. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan idin soo gudbin doono muuqaalo waxtar leh. waad mahadsantiin dhamaantiin meel walba dunida ka joogtaan. waa Nuurdiin oo idin leh bye bye.